Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. هلا Somali TV subscribe please. haddaba Axmed waalidiintiis xiriir fiican lama lahayn mar walba waxay ku dhigi jiray ormaan dhacyo ku bixinayna marka Axmed wuxuu sameyn jiray inta badan online-ka wuxuu ku iibin jiray alaabo soo noloshiisa u kaafiyo markuu 18 sano soo gaaray jaamacadu ku soo biiray familki dhamaan uu ka soo guuray dhibaatada hore uu qabsatana oo iska ilaab hadda Axmed wuxuu jiraa 20 sano sidoo kale wuxuu helay degree shaqo fiican oo uu helay wax uga mahad celinaysana malahan marka aniga waxa isri familka 4 sano ka hor ka soo dhaqaaqday maanta waa inaan la dabaaldegtaa oo Thanksgiving u geesaa macnaha hadiyada qaasa marka waxa isri waa laakiin nambaradooda muu shaqeynaynin ilaan 4 sano waqti dheer waaye marka waxa dhacday inaan aado meel supermarket ah alaabo aan soo gado kadib alaabahaas aan qaado aan hadiyad uga dhigo way familkan muddo badan aan ka maqnaa haddaba intaan xaafada ku laaban waa inaan gadaa 4 baakad oo chocolate ah sababtoo ah ciyaala meesha ku jiro ay kan way u baahan yihiin markii dambana waan soo baxay alaabtii dhan aan soo iibsaday adii waxay ugu kacday $600 camal kadib gaarigeygan soo qaatay ilaa amarkiis markii dambe waxaan soo gaaray xaafadii sidoo kale aad baan uga cabsanaa waxa isla guriga 4 sano ka maqnayd ma qaraaci kartaa waa ceeb anigoo fikiraya albaabka lagu dul furabo yab in xadin waa dhahdaa soogal soo dhawow maxaa haysanayo waa fiicanahay ma soo gali karaa haa soo gal habeenkaas meeshan ku casheynay kale iska aragay ahayd digaag ma dhahdaa chapati ma dhahdaa waxyaalo badan oo cunay alxamdulillah markii dambana ciyaaran fiirsanayna marka waa yaaba waxa isri ciyaartan 4 sano ka hor daawan jirtay abo ciyaarta 4 sano ka hor daawan jirnay maxaa waay hormaalad waxay indhaha waaweyn inay lifetime uma jeedid miya wiilkay caadi iska dhig waxaan waa ciyaar life markaas abo mkadaba anigan marka waa yaaba waxaan marunba amsaabeen waa idin salaamay daawadayaal waa kanaalka caalamiga Holac Somali TV waxa jiro famil u dhintay gaas neeftiisa ka baxay oo qarxay markii dambana aniga waa naxay marka arintaas maqlo waxa isiri abo maxaa kugu dhacay gaasa qof ku dhintay bal gaaska naga hubiya neeftiisa inay xiran tahay kadib gambaleelka yeeray oo saacada aniga naxdin haddaba meeshan waxay ahayd mugdi waxba looma jeedin lanka uu maqnaa markii dambe tooshka taleefankeygan daartay waxa arkay mar rumaysan karo naxdin waxaaba arkay jiir la cunay oo saxanka la dul saaray yaa way talo waxaan wax ka dambe isla markii waxaan bilaabay tooshka inaan ku iftiimiyo meel walba waxaa arkay familkeygii oo wada dhiiga oo indheena ka maqan yihiin dhamaantood indhahooda dhan wada madow hog ah aniga naxdin anigana waa yaabay sababtoo ah way isbedeleen sankii indheena tixriya ka galay markaas waxay igu yiraahdeen waqti badan aan ku sugeynay hadda ugu dambeyn waan ku helnay meeshiina ku dhinteen naxdin layga saar asxaabay aniga magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed waxaana ka shaqeeyaa convenient store waxa la yiraahdaa dukaan macaamiisha u imaadaan wax walba tusaale ahaan farmashi iyo dukaan isku dhex jira waaye marka mar walba wiilkaan nagu soo booqdo meeshan wiilkan da'diisa waxaan ku qiyaasay ilaa 15 sano mar walba meeshan soo galayna wuu ooyaa marka waxa isri talooya soo dila kan haddaba ilaa amarkiis wiilkan mar walba waxaan ku iraahdaa maxaa kugu dhacay laakiin jawaab dhan ma lahan sidoo kale ninkaana mar walba soo wada jeegada xiran oo ka weyn ninkan marka waxa isri familkooda uu ka tirsan yahay ma qof kala aniga shakiyo igu abuuraba
sidoo kale wejigiisaaba laga cabsanaya. haddaba ilaa amarkiis hal maalin wiilkan wuxuu rabay inuu ii sheego, kadib kana soo hor istaagay weyn wuu soo wada war soo bax Mandhocyo maxaa sheegaysaa. isla markii wuu waday, aniga marka waxaa isiri meeshaan dhibaa ka soo socdo, wiilkan yar waa inaa badbaadisaa marka dambe soo laabto. haddaba maalintii xigtay wuu soo noqday, marka weli sidii u labisnaa, dharkii xataa iskama bedelin, koofidii wixii dhan u xirnaa. bis marka ninkii weynaa soo dabagalay, anigana waxaan ku yiri warheeda wax walba ii sheeg, xataa qoraal iigu qor, aniga booliiska u wacaya, wax walbana aniga dhameynaya, fahmaysaa. kadib ninkii uu fiiriyay inuu wax ii sheego damcay, waxaan ku yiri booliiska wacaya saaxiib, caadi iska dhig, aniga ku badbaadinaya, ha cabsan. bis asagoo wax ii sheegi rabo, ninkii aan maqlay asagoo ordaya waa kana, ninkan sidaanuu ii gali rabaa, badbaadi. may saaxiib booliisna noogu wacin, uu idilaa haddii kale. isla markii kii ordaya waa kana, waraa maxaa sheegaysaa Mandhocyo xunka, haddaana ku dilin. isla markii wuu jiiday wiilka banaankuuna u saaray. haddaba maalin maalimaha ka mid a dukaankii aan soo xiray, kadib wiilkiina intii wax iga iibsadeenay soo baxeen, anigana gadaalaan kasoo daba raacay, oo wiilkan yar inaan badbaadiyaa rabaa, waayo noloshiisa halisay ku jirtaa. markii dambe sidaa u gaatama cibaanka xaafadooda iyo meeshay ku haystaan dhammaana arkay. wiilkii oo sii gal rabo meeshaan taabto, waryahay ii waran sooma fiicnid. haa waa fiicanahay niyo, meeshaan maxaa kasoo doonta, adi ma waalatay. yah midaan kuu sheegaa niyo, ani waa laysoo afduubtay, dadaana daaqada iga daawanaya, marka waxaan kuu sheegi lahaa inaa iska baxdid, waayo waa lagu dilayaa meeshaan halisteeda badan, marka waa inaad tagtaa niyo, booliisna haddaa u wacdid labadayna waa dhimanaynaa. wah saaxiib ifaan, nolosheena riskiga gelin. kadib wuu ii riixay, wuxuuna ku orday meeshaas, aniga naxdin. waryahay Mandhocyo meesha maxaa ka qabanaysaa, cunuga yarna aqoon ma u leedahay, warkaala waryaa tuuga xunka. isla markii waxay bilaabeen inay ciijiyaan, midna oo ibaaranay, anigana oo iska foji feeran ku daldalay. kadibna waan soo orday, ninkan wuxuu igu yiri waryaa soo laaba ama cunuga yar waan dilaa. ana orodkii ugu dambeeyaan orday, anigoo neefsan. aniga ilaa maantadan waxaan ka fikirayaa cunug yaraa meel la geeyay, nimankaasna ii ahaayeen, waana qiso xanuun badan oo dhacday. asxaabay layga saara. midda kale waxaa isiraadaa cunugaas manooli mise uu dhintay, yariisoo see tahay. mindiyana ku dileen, jirkiisana way ka ganacsadeen, keliyii beerkii kala baxeen. God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life